gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal Cabdikariin Muuse Maal ayaa dhaliil u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Awdal kaasi oo ku dhaliilay inaanu ku qanacsanayn gudida qabanqaabada 18 May waxaanu sheegay inuu barasaabka gobolka Awdal kala garan waayay maalinta wada lahaanshaha Somaliland iyo maalinta xisbiga kulmiye waxa kale jeclaan lahayn ka hadlo runtii barasaabka gobolka Awdal arrintii 18 May gudidii magacaabay shalay soo saaray absolutely hadaan xisbiyada mucaaradka u ciidiyo wadani kuma naaqanin sidoo u xoreeyay waxa ahayd si dhinac ka haran xukuumadda oo qulahaatan xisbiga kulmiye ku koobay hadaan hay xisaabta mucaaradka waxaanu leenahay garabyaha haween waxaanu leenahay garabyo dhalinyar waxaanu leenahay hoggaan labada xisbi mucaarad ma laga qadiyay ka qaybgalka iyo ka qayb qaadashada 18 May oo ahayd maalin qarankan wadalay mucaarad iyo muxaafidba barasaabka gobolka Awdal loo ildoofay waxaanu kala saari waayay maalintii qarankan ilaha wuxuu ka dhigay maalin xisbi gaar u leeyahay kulmiye xukuumaddiisu ay leedahay mucaarad iyo muxaafid baan la 18 May waynu wada lahayn oo maalin qaran bay ahayd laakiin barasaab rama wuxuu kooto ugu xidhay xisbiga isagu wakiilka ka yahay kulmiye haddaan nahay labada xisbi mucaarad ee u ciidiyo wadanina absolutely kuma qanacsanin sida waxa uu xulay raalina kama nihin waana nu cabareynaa taasina waa taas waxaan ku soo gabagabeyn lahaa hadalkayga maanta aan ka hadlayo fariin u dirayo golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland waa niman odayaal qiimo badan ku lahaa dalkan xaalado badan oo adagna inaga soo saaray waxaan leeyahay sumcadiina iyo magaciina sida ka muuqatay guurtida waxaad ahaan jirteen rag sama odayaal samihii uu ka taliya taariikhdiina ku soo xidhina qaswadayaal golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland faraya qaranka halka ka yahay xalaasha ka ahayd waxay ahayd xukuumadda waayo golaha guurtidu wuxuu ahaa xaraan muddo dhaafay intaas oo jeer baa loo kordhiyay golaha wakiiladana way la soconayeen 10 sano fadhiyaan inay xaraan sidoo kale yihiin xukuumaddu kaliya hatta xalaalaha xukuumaddiina hadday xaraamaysan qaran wada xaraan ay noqonaynaa adduunyaduna ay dhageysan mayso sidoo kale Cabdikariin Muuse Maal gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolka Awdal ayaa sheegay inuu musuqmaasuq ragaadiyay dawladda hoose degmada Boorama isla markaasina ay dawdahayn albaabada loo laado gabi ahaanba adeegii ay bixin jirtay dawladda hoose degmada Boorama asoo uu sheegay inay mas'uul ka yihiin maayirka magaalada Boorama iyo ku xigeenkiisu jeclaan lahayn ka hadlo arrinta dawladda hoose ee degmada Boorama oo aan in muddo ah runtii ka hadal hanaankii shaqo ee dawladda hoose ee degmada Boorama oo runtii burburay ama meesha ka baxay leadership xumo iyo hoggaan xumo haysata aawadeed hadday tahay duqi iyo hadday tahay maayirkii degmada runtii aan moodo inay ku fashilmeen shaqadii ay dadkan iyo dadkan u hayeen haddaan hoos ugu sii dhaadhaco dawladda hoose degmada Boorama waxaa dul hoganaya mawjado musuqmaasuqa oo ragaadiyay shaqadii iyo habsami socodkii iyo hawlihii dawladda hoose ee degmada Boorama runtii mas'uul ka yihiin maayarka iyo maayarka xigeenka xilkoogii gabay ee hawlihii ay u hayeen degmada runtii aad iyo aad uga gaabiyay Khadar Maxamed Xasan Labaqayle TV-ga caalamiga Som News magaalada Boorama